ku soo dhex jiray qaababka kala duwan ee online-ka lacagta looga sameeyo. Waxay ii kala ahaayeen xilliyo aan baaritaan ku waday qaababka saxda ah ee ii shaqayn kara iyo waqti aan lacag ka samaynayo internetka. Sidoo kale 8 bilood ee ugu dambeysay waxaan muuqaalo badan ka sameeyey qaababka saxda ah ee internetka lacagta looga sameeyo. Muuqaalkan wuxuu ka koobnaan doonaa muuqaaladii ugu faa'iidada badnaa qaabka saxda ah ee la hubo aad internetka lacag kaga samayn karto, kuwaasoo kaa saacidi kara inaad online-ka ka samayso $1,000 iyo ka badan bishii. ma jirto waxaan kaa iibinayo gudaha muuqaalkan. Waxaan kugula wadaagi doonaa aqoontayda oo dhammaystiran sida internetka lacag looga sameeyo qaab step by step ah. Sida aad u jeedo muuqaalkan maahan muuqaaladii caadiga ahaa ee aad YouTube-ka ka daawan jirtay. Muuqaalkan waa muuqaal aad u dheer, haddana ay ku jirto faa'iido badan. Waxaan hubaa haddii aad muuqaalkan si degan u daawato waxaad ka heli doontaa aqoon igu qaadatay 10 sano iyo ka badan inaan ogaado, taasoo noloshayda wax badan ka bedeshay. Adna sidoo kale noloshaada wax badan ka bedeli doonta, weliba si bilaash ayaad ku heli doontaa. Waxaan rajaynayaa inaan isku aragno commentiska muuqaalkan adiga wax badan ka faa'iiday. Muuqaalkan waxaa sponsor gareeyay Amka Stock. Waxaa tahay qof dhalinyaro ah da'diisu u dhaxayso 18 ilaa 35 jir, weliba nolosha wax muuqda kama aadan qabsan oo waalidkaaga ayaad wax walba ka sugaysaa, balse waxaad doonaysaa inaad noloshaada iyo nolosha waalidkaaga wax ka bedesho. Waxaad rabtaa inaad lacag badan samayso, balse waad garan la'dahay halkaad wax ka bilaabi lahayd. Saaxib, haddaad heerkaas ku jirto, waxaan muuqaalkan kugula wadaagi doonaa habkii ii shaqeeyay 8 sano ee la soo dhaafay oo iga saaciday inaan wax badan ka bedelo noloshayda oo noqdo qof wax qabsada, dadka ku tiirsanna wax tara. Hubaal haddii aad raacdo tilaabooyinka aan kugula wadaagi doono muuqaalkan, waxaad gaari doontaa heer aad dib u soo eegto xaaladda mugdiga ah ee hadda aad ku jirto. Haddii muuqaalkan aad wax ka faa'iido, kaliya waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto si uu u gaaro dhalinyaro badan oo raba inay noloshooda wax badan ka bedelaan. Baro xirfad qiimo leh. markii aad dhalinyaro tahay, arrinka ugu fudud ee kuu ogolaan kara inaad lacag badan samayso waa inaad yeelataa xirfad qiimo leh oo lacag aad ka samayn karto. markii aad tahay qof leh xirfad ay baahi badan ka jirto, suuqa asaga ayaa kuu baahan mar walba, wuxuuna kugu abaalmarin doonaa shaqooyin qiimo badan oo kuu saamixi kara inaad dakhli fiican ka samayso bil kasta. xirfadaha waa waxa kala saara dadka, oo qofna ka dhiga inuu bishii sameeyo $150, qof kalena ka dhigi kara bil kasta inuu sameeyo $1,000 iyo ka badan. labadaas qof dakhliga soo gala waxa kala duway waa xirfadda uu suuqa la yimid qof walba iyo waxa uu yaqaano. xilligan aan ku jirno, waxa ku meel marin kara oo dadka facaaga ku dhaafsiin kara waa inaad yeelataa xirfad qiimo leh oo dakhliga aad ku haminayso aad ka samayn karto. saaxiib, haddii aad dhisto skillsetkaaga, waqti fiican aad geliso inaad barato xirfadaha ugu lacagta badan dunida xilligan aan ku jirno, hubaal waaye noloshaada wax badan ayaa iska bedeli doona oo waxaad noqon doontaa qof dakhli fiican ku tasha bil kasta, nolol sarana ku noolaada oo waalidkiisana wax tara. waxaa macquula markaan isweydiinayso sideen ku baran karaa xirfad qiimo leh. qaabab kala duwan ayaad ku baran kartaa xirfadaha ugu dakhliga badan xilligan aan ku jirno. markaad maqasho xirfadaha ugu dakhliga badan, waxaa macquula inaad isdhahdo waa wax adag barashadooda. maya saaxiib, ma adko barashada xirfadaha ugu dakhliga badan xilligan aan ku jirno. qaab fudud ayaad ku baran kartaa iyo waqti yar weliba. qaabka koowaad, adiga ayaa isbari kara xirfad walba, weliba waa qaabka ugu fudud uguna waqtiga yar, haddana la hubo wixii aad isbarto inaad ku noqon doonto qof khabiir ku ah xirfadaas aad isbartay, mana noqon doonto wax aad baratay oo aad hilmaantay. maxaa yeelay waxa aad adiga isbartaa waa wax mar walba maskaxdaada ku qornaan doona oo inaad hormariso maahane aadan hilmaami doonin. halka wixii lagu baraa oo aad jaamacad ama iskuul aad u gashay ay u badan tahay inaad exaamka keliya ka fiirsato oo aad maanto waqti yar kadib. saaxiib, marka waxaad ka baran kartaa xirfadaha ugu dakhliga badan ee xilligan aan ku jirno si bilaashana aad uga baran kartaa YouTube. ayaad ka baran kartaa xirfad kasta. qaabka labaad waa inaad gadataa online courses oo aad ka barato qof xirfadan isu soo baray oo aqoon badan u leh, waqti badanna soo geliya. waxaa kuu fududaanaysa inaad ku barato xirfadaas iyo aqoontaas qofkaas uu leeyahay si fudud, adigoo isla markaasna heli doona caqabadihii ku qabsan lahaa qof kula xaliya mar walba oo hage kuu noqda. qaabkan waa qaab kale oo fudud oo aad ku baran karto xirfadaha ugu dakhliga badan xilligan aan ku jirno. isku day marka labada way midka kuu fudud inaad samayso. qaabka koowaad oo ah inaad xirfadda adiga isbarto. haddii aysan kuu fududeen marka xirfadda inaad adiga isbarto, inaad qof xirfadda soo bartay oo online courses bixiya, courseskaas aad ka gadato, kadibna halkaas aad adiga xirfadda ka barato oo aad hesho qof ku haga oo macallin kuu noqdo oo xirfaddan ku bara inaad hesho. shaqo qiimo leh ka shaqeeyo. markii aad yeelato xirfad ay baahi badan ka jirto oo aad dakhli badan ka samayn karto, waxaa wanaagsan inaad ku shaqayso xirfadaas oo aadan la fariisan. maxaa yeelay haddii aad xirfadda soo barato waqti badan aad ku bixisay oo aad meel iskala fariisato oo aadan shaqo gelin xirfaddaadii, waxba kuma soo siyaadi doonaan, keliya waqti iyo lacag ayaa kaaga baxday si aad xirfaddaas u soo barato, mana aadan ku shaqo gelin. tusaalaha ugu fiican oo aad ku shaqangelin karto xirfaddii aad soo baratay waa inaad ka shaqayso shirkad ku shaqaysa adeegaas, magac fiicanna leh oo qiimaha xirfadda aad leedahayna garanaysa, lacag fiicanna kugu siinaysa shaqadaas aad la qabanayso. ujeedku maahan inaad sii aadato shaqaale weligaa, ee marka hore waa inaad xirfaddii aad soo baratay shaqo gelisaa, kuguna ziyaadaa aqoonta aad u leedahay xirfaddaas,
kuna soo fahantaa nolosha shaqaalnimo halkaasna aad ku soo barato dad badan oo aad la dhisato xiriiro macno leh oo kuu horseedi kara inaad hesho shaqooyin kale iyo fursado kale ogow markii aad meel shaqo ka bilaabayso haddii aadan lahayn xirfad ama xirfadaadu heer sare gaarsiisnayn dakhli badan kama samayn doontid meel hoose ayaad ka soo bilaabaysaa u dulqaado markaas balse haddii xirfadaadu tahay mid heer sare gaarsiisan oo halkii la rabay iimayl ka wanaagsan aad joogto hubaal dakhli fiican ayaad ka samayn kartaa shaqadaas aad ka shaqaynayso khibrad fiicanna waad ka heli doontaa markii aad tahay qof leh xirfad ay baahi badan ka jirto suuqa isaga ayaa kuu baahan abaalmarintaaduna waxay noqon doontaa inaad xirfadaada dakhli badan ka samayso oo aad gaarto heer aad ku fikirto inaad iskaa u shaqaysato oo aad awood u yeelan karto inaad noqoto freelancer oo aad qaadato projects adiga ku gaara oo ka baxsan shaqada aad ka shaqayso tani waxay nagu xiraysaa qodobkeena saddexaad ee muuqaalka saaxiib haddii aad meesha soo gaartay muuqaalkan aad wax ka faa'iiday please muuqaalka like saar si dad badan oo adigoo kale ugu gaaro noqo freelancer